رمضان ونكسن رمضان كريم maanta ay tahay 26 bisha 2 2026 oo ku beegan maalin khamiisa sida caadada ahayd waxa xarunta madaxtooyada dawladda koonfur galbeed Soomaaliya ka qabsoomay shirkii golaha wasiirada dawladda koonfur galbeed Soomaaliya oo maartay daafuray madaxweynaha dawladda koonfur galbeed Soomaaliya mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen shirkaasi maanta waxa warbixin laga dhageystay wasaaradaha amniga wasaaradda qorsheynta iyo maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha wasaaradda caafimaadka iyo wasaaradda tamarta ugu horeyntii waxa warbixin laga dhageystay wasaaradda amniga dawladda koonfur galbeed Soomaaliya oo ka warbixiyay xaaladda guud ee amniga dawladda koonfur galbeed Soomaaliya saad ogtihiin waxa socdo dagaalo lagu la jiro kooxaha khawaarijta kuwaas oo ka socda gobolada Baay Bakool Shabeellada Hoose ay iska kaashanayaan ciidamada qalabka sida iyo ciidamada booliska gaarka ah ee daraawiishta koonfur galbeed Soomaaliya kuwaas oo baacsi ku haya kooxaha khawaarijta meelaha ay dhuumaaleysi kaga hayaan goboladaasi saddexda ah ay ka kooban tahay dawladda koonfur galbeed Soomaaliya waxaana jira guulo waaweyn ay soo hooyeen ciidamada qalabka sida ee gobolka Shabeellada Hoose gobolka Baay iyo gobolka Bakool halkaas oo furimo muhiim ah oo ay kooxahaasi kontrooli jireen hadda ay soo gashay gacanta dawladda koonfur galbeed Soomaaliya ee laga ceyriyay kooxihii qaswadayaasha ah oo halka ku dhibaateynay shacabka ee masaakiinta sidoo kale wasiirka wasaaradda amniga koonfur galbeed Soomaaliya wuxuu warbixin ka bixiyay xaaladda qalalaasaha iyo kooxaha fadqalalaha ka wada meelo kamida dawladda koonfur galbeed Soomaaliya taasoo xaalkooda hadda ay noqotay mid la soo gabagabeeyay balse ay jiraan kooxo barabagaan iyo waxyaalo aan loo baahnayn marinaya miidiyaha jahwareerna ku riday shacabka koonfur galbeed Soomaaliya dawladda koonfur galbeed Soomaaliya waxay si sax ama si adag u xaqiijinaysaa in deegaanada koonfur galbeed Soomaaliya ay yihiin dhammaan kuwa xasilan ayna kontroolaan ay gacantana ku hayaan ciidamada amniga dawladda koonfur galbeed Soomaaliya ee waxyaalaha miidiyaha la marinayo ama laga sheekeynayo social media lagu hadalhayeen ay yihiin waxyaalo aan haba yaraatee sal iyo raad lahayn arinta ka dhacday degmada Buurhakaba dawladda koonfur galbeed Soomaaliya waxay ka leedahay mowqif waxana arintaasina gacanta lagu hayaa sida uu madaxweynaha dawladda koonfur galbeed Soomaaliya hore u sheegay waxa weeyaan wax walba iyo cid walba oo tabasho qabta dawladda koonfur galbeed Soomaaliya waxay arintooda ku xalinaysaa qaab wada hadal iyo xasilooni ah laakiin waxaan marna la yeelaynin in dadka degmada Buurhakaba ku nool loo haysto qaab hostage ah ama afduub ah waxaad ogtahay qofka dhahaya aniga mataqaana waxaan ka baxay dawladda koonfur galbeed Soomaaliya ma aha urur lagu biiray waa deegaan dadka ay degan yihiin qofka hadduu xilka u hayo iska casili kara laakiin shacabka iyo malaayiin iyo boqolaal kun oo ku nool deegaanada koonfur galbeed Soomaaliya gaar ahaan degmada Buurhakaba ma aha meel loo haysan karo afduub iyo hostage sababtaas la ajligeeda dawladda waxay arintaasi ku wajahday qaab xigmad leh waxayna u maraysaa marin nabadeed waxayna wada hadal kula jirtaa dadka iyo odayaasha dhaqanka iyo dadka ay arintaas qosayso dhawaanna waa la soo afjari doonaa mushkiladda ka jirta ama tensionka ka jira degmada Buurhakaba sidoo kale waxa warbixin laga dhageystay wasiirka caafimaadka dawladda koonfur galbeed Soomaaliya oo ka warbixiyay xaaladda caafimaadka guud oo uu sheegay horumarada ay dawladda koonfur galbeed gaar ahaan wasaaradda ay ka sameysay dhinaca caafimaadka isbitaalka guud ee magaalada Baydhabo iyo habka cusub ee casriga ee lagu soo biiriyay iyo kuwa dhawaan uu madaxweynaha dawladda koonfur galbeed Soomaaliya mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen uu afjari doono kuwaasoo ah qalab casri ah oo isku jira raajooyin shaybaaro casri ah oo ah kuwii ugu dambeeyay oo mataqaana adduunka hadda laga isticmaalo sidoo kale wasiirku wuxuu ka warbixiyay deegaanada guud ahaan Shabeellada Hoose Baay Bakool iyo howlaha caafimaadka ay wasaaradda ka wado sidoo kale waxa warbixin laga dhageystay wasiirka qorsheynta oo ka warbixiyay gargaarka ay dawladda koonfur galbeed Soomaaliya ay siinayso dadka jilicsan oo dhawaan aad la socoteen in shaqaalaha iyo xubnaha ka tirsan dawladda koonfur galbeed Soomaaliya ay aruuriyeen lacag fara badan lacagahaasna loogu deeqayay dadka jilicsan ee ka tirsan mujtamaceena arintaasina waxa weeyaan meel fiican ay gaartay lacagtaasina waxay la gaarsiiyay deegaano badan oo ka tirsan dawladda koonfur galbeed Soomaaliya sidoo kale waxa warbixin laga dhageystay wasiirka tamarta iyo biyaha isagoo ka waramay xaaladda guud ee biyaha koonfur galbeed isagoo sheegay wasiirka xaqiijina in biyo la'aan aysan ka jirin magaalada Baydhabo balse meelaha qaar oo maadaama magaalada ay ka socoto jidad
يلامي لا دhisaayo beebabkii jidadka maray qaarkood ay go'een taasna ay keentay xaafadaha qaar inay biyari ku dhacdo laakiin hadda ay wasaaradda iyo maayarka degmada ay iska kaashanayaan sidii arrimahaas loo sixi lahaa wax dhibaato oo arintaas dhaafsisan oo biilaan ama xaalad biilaan aysan ka jirin magaalada Baydhabo gaar ahaan magaalada Baydhabo iyo guud ahaan gobolka Baay iyo guud ahaan deegaanada dawladda koonfur galbeed Soomaaliya xaaladaha guud ee maaragtay deegaanada koonfur galbeed Soomaaliya markii la iska wareystay waa mid xasilan oo degan madaxweynaha dawladda koonfur galbeed Soomaaliya wuxuu kula dardaarmay golaha wasiirada inay ka shaqeeyaan xoojiyaan gudbiyaan siiyaan dadka adeegyada ay u baahan yihiin wuxuuna ku dhiirigeliyay kuna amaanay wasiirada shaqada wanaagsan ee mujtamaca u hayaan wuxuuna sheegay in looga fadhiyo inay dadka gaarsiiyaan adeegyada asaasiga ah sida biyaha caafimaadka iyo amniga aad iyo aad u mahadsantiin shirkan wuxuu ku soo dhamaaday si guul ah